الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسيان وحاو كبلاميا آيات بقول يلحاد كان من سورة المائدة وحاو ربي سبحانه وتعالى هل كان إنه عطينا يا حكم إلهي سبحانه وتعالى أوليه سدا وحقر صورة إلهي إساقايا إنه سميي شريعه أما دين أما قابي هبقى كوكرا بحنو نولوشينا وحكستو إن لسو قدبون هذا وإن إنه يسكو نقنو كوكرا بحنو إلهي سبحانه وتعالى حكم كيس إلهي شريعة دي سامحان إيدما يسكتراني وحبا كتغين وحبانا آني قبيا كأهين وحكستا أيدو افتيمس وكتاب قرآن تبيانا لكل شيء وكتاب وحكستا افتيمينيا قيحيا عدينيا ما فردنا في الكتاب من شيء وكتاب وحلقوهم بي إيا وحلقا قتقي midna aanu jirin wax ka qabiyi ma jiro ilaahay wax walba uu ku dhamaystiray halkan waa mas'aladan fuqahaadu waxay tilmaamaan waa mas'alo aan wax la midi aanu jirin kaligeed weeye wax kaloo iyada u eeg amba looga qiyaas qaato amba la midi ma jiro waa mas'alo iskeeda weeye مسألة محيط هدو روح مسلم أو صعوتيو نولكي قالدو تجي أما ما يعني ولا سفري بقال أيو لا سفري markii wasaacadiisii ay dhawaatay
wuu xanuunsaday itaal baa haleelay wuxuu ka baqay inuu dhinto laba mid baa u gudboon in xoolo iyo hanti wixii uu sitay ay saa ku dayacmaan iyo inuu dadkaa uu la joogo ee gaalada ah uu u dardaarmo waxaa ilaahay u bannaynayaa inuu gaaladaa dardaaranka u dhiibo waa gaalo laakiin inuu dardaaranka u dhiibo gaalka muslimka markhaatina uma noqdo maragna looma qabsado laakiin masaladan markay baahidu keento ay daruura keento ee ninkii muslimka ay u gudboonaato inay hantidiisii baaba'do ama mayane wixii isagu muhiimka u arkayey inuu sii qoro uu ka baqayay inuu halleeyo markay u gudboonaato inuu dardaarmo hadduu muslim waayo oo gaaladaasi uu dardaaranka u dhiibo ayuu ilaahay halkan ku bannaynaya waa xaaladda qudha ee muslimka loo ogol yahay inuu gaalkii markhaati gashado maxaa markaa dhacaya ilaahay wuxuu leeyahay subxaana horta idinka muslimiin ah hadduu midkiin ka baqa inay ajashiisii ay gaadhoy dhakhtarkii baaba u warramay siduu u noolaanaya inay adag tahay mayna isagiiba nin weyni wadkii uu yaqaan wuxuu arkay xaaladdan uu ku jiro miduu ka kacaya inaanay astaamaheedii lahayn oonay u eegayn ilahi wuxuu leeyahy waar dardaarma dardaarankana waxaad u dhiibtaan laba idinka mida laba muslim u yeedha dardaarankii farta ka saara isagii oo qoran isagii oo afka aada uga sheegteen say doonaysaa noqdo dayn baa laygu leeyay ciddaa baan xoolo ku leeyay ciddaa waxaa iga siiya dadkay dhaxlaya midaan saaxiib nahayn mid xoolaha igala shaqeeyey mid eheladoo edde iyo abti iyo oo anigu naxariis badan iyo hadhow wax u oggolaan maayaane waxaa ha la siiyo eg dardaarankii ninkuu rabay inuu dardaarmo ha dardaarmo buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala yuu u dhiibayaa muslimiin haddii muslimiin la waayo waxa u dhiibi laba gaal buu dardaarankii u dhiibi oo dhul gaala ana bishardi haddii laba shardi baa lagu xidhay hadduu socoteeyo oo dhul aan muslim ku noolayn uu tago kow laba hadduu uu u maleeyo inay saacaddiisii tuu dhimanayo labadaas haddii la helo laba gaal ha u dardaarmo labadii gaal dardaarankii bay keeni waxayna dardaarankii lana dardaarmay waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa way iftiimiyeen laba mid baa inoo gudboon haddii lagu kalsoonaado oo sida ay wax u tilmaameen lagu qanco waxba loogama baahnee waa fa ahlan wa sahlan waa oggolaansho haddii laakiin laga yar shakeey madmadow yeelato waa la dhaarin goormaa la dhaarin salaad casar dabadeed baa la dhaarin salaad dabadeed baa la dhaarin salaad mar la tukado salaaddii marka laga baxa dabadeed baa la dhaarin meena waxaa la dhaarin doonaa salaad casar dabadeedba say u badan yihiin jamhuurku intaa markay dhaartaan sidii ay sheegeen baa lagu dhaqaaqi waa la socodsiin labadaa gaal wixii ay ku dhaarteen baa la fulin haddii shaki uu yimaado oo dadkii ninkan ehelada u ahaa ay haddana shakiyaan oo amba waxay ku shakiyeen waxaan ay sheegayaan baan iyo waxa jiraan islahayn mayna hantidii ninkan lagu ogaa ayay inay qarsoon tahay wixii uu sitay waxyaalihii ugu waaweynaa la ogaabaa badh laga dhex waayey meesha hadduu si uun shaki u yimaado ilaahay wuxuu leeyahay laba nin oo kalaa kici labadaa ninee kale laba bannaanka ka yimid ma aha laba ninkan labadii raggii ugu xigay ah ayaa kici markaasay iyana dhaaran waxay ku dhaaran inay waxay sheegayaan waxba ka jirin markaasaa dardaarankii iyo markhaatigoodiiba bannaankaa la marinoo waa laga saari meesha kii gaaladu wixii ay sheeganayeen
ayaa meesha laga saari waa markay ka daba dhaartaan laba nin oo kale oo ninkan dadkii ugu xigay ah masaladu waaba inta waa masalooyinka ugu adag xagga laftiga qur-aanka iyo fiqi ahaanba marka koowaad nin kastaba dardaarankiisa laba markhaati ha u sameeyo oo muslima haddii waayo laba gaal labadii gaal haddii laga shakiyi waayo dhib male haddii laga shakiyo labadii baa salaad casar dabadeed la dhaarin intii la dhaariyey ka bacdi hadday wax ka soo muuqdaan astaamo aanba ifafaalo caddaynaya inaanay run sheegayn laba ninka dadkii ugu xigay baa ka daba dhaaran si loo saaro wixii ay ku dhaaranayeen iyo markhaatigoodiiba saw-nusuul bay lahayd arrintu bal saw-nusuulkay ku soo degtay aynu dhegaysanno marka si aynu u fahmi karna marka aayadda laftigeedaynu qaadan waxaa safray laba nin oo gaalo ah iyo nin muslim ah tamiim addaari markaa tamiim addaari dee axaadiistaad ku arkiyo isagoo muslim oo saxaabi aad arki sannaddii sagaalaad dabadeed buu islaamay markay laakiin arrintani dhacayso muslim ma ahayn ninkii tamiim addaari iyo cadiy ibnu badaal laba nin oo la yidhaah ayaa waxay had iyo jeer ka dhex noqnoqon jireen makiya madiinay ka dhex shaqayn jireen labada nin waxaa raacay nin yaroo dhallinyar ah oo axaadiistu ay ku tilmaameen inuu ahaa reer bani sahmi magaciisa intaa baa laga sheegay reer bani sahmi ah ninkaa yare dhallinyartaa raacay ninkii yaraa baa dhintay wuxuu ku dhintay dhul aan muslimba joogin oo dee labadan la socona waa gaalo dhulka kalena wada gaalay ahayn labadii nin markii uu arkay inuu dhimanayo ayuu dardaaran u qoray dardaarankiibuu u dhiibay wuxuu idhi ehelkaygii u geeya wixii xoole aan sitayna waa kana iga qabta ehelkayga siiya buuri ragga siirada bar waxay leeyihin wuxuu shakiyo intuu dardaaran kalena qoray ayuu karbaashkii awrka ayuu geliyey ragna waxay leeyihin dardaarankii unbuu qoray labadii nin xoolay keeneen xoolihiisii dardaarankiisii bay keeneen sidii baa lagaga qaaday waa la oggolaaday halkii baa lagu kala tegey dee ninka eheladiisu shaki baa yar galoo koob isagu uu haysan jiray oo lacag ahaa dahabna qayb ka midii ay ahayd oo dahab iyo lacag isugu jiray ayay alaabtiisii ka dhex waayeen inuu qaatayna waa la ogaa dee ma isagaa hortay sii iibsaday ma isagaa hortee dayacay way isla yar buuqsanaayeen waxay dhahan talow siduu u dhacay labadii nin waa la dhaariyey waxaan ahayn kamaanaan arag bay idhahdeen in yar ka bacdi ayaa waxaa laga helay ila waa galaas qaali ahaayoo caan ahaayoo reerkiisu garanayeen kii oo maka lagu kala iibsanayaa la arkay raggii iibinayay baa la war xaggeed ka keenteen ehelkiisii bar ka midaa gartay waxaanu ka keennaa la yidhi waxaa naga iibiyey ninka la yidhaahdo tamiim iyo cadiyin amba cudayin baa naga iibiyey nebigaa loo yimid salawaatu ullaahi wasalaamu calayh labadii ninay iska dhaardhaaranayay ee wixii sheegayey beentood bay ahayd nebigu dib buu u amray laba kale inay dhaartaan si aayaddan baa soo degtay labadii kalaa dhaartay deetana waxaa laga qaaday xaqii baa laga qaaday oo waxaa dhi iska keena iska bixiya xoolaha marka ilaahi subxaanahu wa tacaala taa buu tilmaamaya qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyihi yaa ayuha aladiina aamanuu war dadka mu'miniinta ee iimaanka lahow shahaadatu baynikum markhaatigiinna dhexdiinnu shahaadata marag furka baynikum dhexdiinna aada marag furi
إذا مركي حضروا يمادو أحدكم متكين الموت جيريد مركي أتمادو مرق فركين وحوي حين الوصية مركا دردار ميسان اثنان اللابو دواء عدل عدالة الصاحبة أو منكم إذا كم يدبر رب سبحانه وتعالى تاسوارين اسكفوا نين كستو ساعدي سي دواتو أو إنه دمان أيه على مدى أستامه دي قرتا هدر دارمو أقدر دارن كنا بقول حق وحقوقه قف كستو مسلم إنه دردارمو دردارن كيسينو قر إلى وح إلهي اللي قبريو موت القفلو وحكلا ما وهذيك يود كلا بهسنو نحدين تسوى أنت أضو هذا ذلك يسوي أستامي حنونك وكتابتي أدسك صعوطان بعد عافمات قبابة دردارن كاغا قر وشاك دتك دي دين لقولي هذا دين لذاي هذا حولاق سوك الفرسمينيسي إلى إن إلهي هذا قلت لك ليسي إنك دتك إنه دردار مانو دردارن كودنا متفالحون وحورنا إياه إن أنت إذا واحد سيء حولها إن كيجا واحد سيء حولها أقول جهلي قوي قف دحالك دردار الملك ونجي صامر دحالك قف هذو دحالك بقى وسوق ليه دردار الملك لو ما دردار مكرم إلهي بقى بس فيه قيبتيس واحد دردارن كاللجو إلى عليها وضد كان دحالك سوق لين إلا قضية أتكبقيس المير با كلا soo koray ma ilmayar baabad korsatay mayane waxa weeye abtigaa baa jooga edadaa baa jooga saaxiibkaa baa jira aakhiradaada waxaad ula baxaysaa jira waxa aan dhaxalka soo galayn ayaa ina dardaaranka ku xustid ugu muhiimsan ya ayuha alladina aamanu wardadka mu'miniinta iimaanka lahow shahaadatu marag furka baynikum dhexdiinu إذا مركي حضر ويمادو أحدكم متكين الموت موضوع يمادو حين وقت جي مرق فرك مرق فريسان حين الوصية دردارا كحل جيسو إثنان اللبوي مرق فركين لما مرخات وين ليسميسان أو دواء صاحب عدل عدالة أو منكم إذا كيدي كمدي هدي لوايو أو أمابا آخران اللبك لهم مرق فران أو من غيركم إذنك أنا هين مسلمين أنا هين قال أو أمام آخران اللبك له أو من غيركم إذنك أنا هين وقور ما قورتي قال مرخاتي فري إن أنتم هداد إذنكم ضربتم أصعطيسان وأصفرتان في الأرض لك دحليسة أو فأصابتكم أيدن كهبستو إذن هاليشو مصيبة الموت جيري ورنكيد مصيبة الموت جيري ورنكيد إذن هاليلو تحبسونهما ويدن شوشين لبضا كله تحبسونهما ويدن شوشين من بعد صلاة دبديد انتي آتوكتين أيدن شوشين فيقسمان وحي كدارا بالله إله مجيء بي كدارا وقور ما قورتي دارا إن ارتبتم هدات شكيدان هدات شكيبة ويدان أو وحي اسكعد بأيتاي ننكو تشيك بوسيتي العقير بوسيتي ألا بوسيتي إيه الكيسو انتي بابا الله كيريبا انت بول نقو دردار بي انت بوسيتي هذا إذا شكين دي ماله لكن إن ارتبتم هدات شكيدان أيدون دارين محاد كو دارين إيسان وحي أوران لا نشتري سيسان مينو به إلهي مجيعي ثمن الدنيا سيسان مينو وحي كو داران لا نشتري ما سيسانينو كما إيبسانينو به دارتا ألا مجيعي ثمن الدنيا سيسان مينو ولو كان هباء هذا
kan almashhuudu calayhi lagu marag furi daa qurba xigta midu saaxiibaba ha noqdo marag furkanaan marag furaynaa haba dhibaataynaayo mid xigta u saaxiiba amba waxa u taraayo mid xigta u saaxiiba cidba uma eexanayno wey walow kaana haba noqdo kan lagu marag furi daa qurba mid qaraabo u saaxiiba walaa naktumu qarinna mayno shahaadat allah ilaahay maragiisa qarin mayno innaa anagu idan goorta haddaan ilaahay markhaatigu nagu lahaa aan qarinno la min alaasimiin kuwa dembaabay oo inta dembaabtay ka mid ah ayaa nahay intaabay ku dhaaran wixii ay sheegeen baa la socodsiinoo lagu dhaqmi fa in haddii cusira la ogaado la arko calaa annahumaa inay labadoodani istaxaqaa muteen isman dembi oo waxanba ay ka been sheegeen fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagi maqaamahumaa booskoodii iyo meeshoodii maqaamahumaa halkii iyagu ay joogsadeen ayay laba kale istaagi labadaasoo ayaa min aladiina kuwii ka mida istaxaqa mutay calayhim labadaa gaal ka mutay maragga oo alawlayaani labadii ugu xigtay ah alawlayaani kuwii ugu xigay ah fa yuqsimaani way dhaaran billaahi ilaahay magaciisay ku dhaaran oo waxay odhan la shahaadatuna markhaati furkayaga marag furkayaga ayaa axaqu ka garnimo badan min shahaadatihimaa iyaga marag furkooda wama ctadaynaa manaanaan xadgudbin innaa anagu idan goortaa haddaanu masabidayno hafarye iyo dembi dul dhigayno la min aldaalimiin kuwa gardaran oo inta gardaran ka mid ah ayaa nahay rabbi wuxuu leeyahy waxaan sidaa u yeelnay labadan hadday iska dhaartaan oo halkaa lagu daayo waxaa la arkaa inay xuquuq badani ku lunto waxaanu maragga marag uga daba keennay waa laba arrinu waa marka koowaade inuu ninku markuu markhaatiga furayo sideedii uu u furo ou dhaa waa lagaa dambeeya haddaad u furi weydo sideedii waa lagaa daba qaadan laba inuu ninku hadduu sidaaba qiimayn waayo inuu sharaftiisa iyo dadnimadiisa u boqo uu idhaahdo hadhow waa lagu fadeexadaynoo rag kalaa odhan doona waa beentii siduu qofku isku ilaaliyo aw marka horeba xaqiiqada uu u sheego ayaa saa u yeelnay buli rabbi subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu leeyahy daalika arrinkaas alxukmu xukumku daalika sidaa weeye amba daalika sidaasi haabitun mid sugan weeye alamru arrinku daalika sidaa weeye daalika sidaa baana adnaa u dhow an ya'tuu inay ula yimaadaan bishahaadati markhaatiga calaa wajhihaa siday ahayd calaa wajhihaa siday ahayd inay ula yimaadaan aw amaba yakhaafuu inay ka baqaan an turadda in la celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaartoodii dabadeed oo cid kale ay dhaarato waataquu llah ilaahay ka baqa wasmacuu dhegaysta wallaahu allahna laa yahdi ma hanuuniyo alqowma dad alfaasiqiina ilaahay diintiisa ka baxay masalada waan arkaynaa waa masaladaa kooban ee aynu nidhi tan keligeed wey waa haddii la waayo muslimiin dhul gaalaana qofku uu ku dhinto sidaa yare fudud baana la yskaga daba dhaaran islaamku waxaa o dhan muxuu u samaynayaa loo adkaynayaa waa in xuquuqda la ilaaliyo waxaa la diidan yihi nin kastoo iska beenaalo ah amba maxaanku dhahday iska afmishaara inuu meelaha an wax iska wadwatuu iska dhaardhaarto war kuwaa shahaadanayaan dhaartu waxba la ahayn dadkeennii hore fitrada ku noolaa dhaar laguma karin isagii oo run og haddaad runta ku dhaara tirahay ma dhiig islaameed baan gala iga tag boodhina
imaka laakiin waliya biluun oo ka soo horeeya dadka waxa kaloo dhibaato ah innagii oo ah nolosheenni fiqigii baan ka fogaanay waxaad maanta arki dadkii walaalaha waxay isnacayaan markay dhaxal noqoto isnacayaan maxaa keenay waxaynaan ku qanacsanayn ilaahay sharcigii uu ina siiyey inaan ku qanacsanayn adoo amba ha kuu yaraato amba ha kuu badnaato alxamdulilah ina tiraahdi mar gabadhay u badan mar inankay u badan mar odagay u badan mar islaantay u badan marba mid bay u badan midna way ku yaraan ilaahay waxa uu ku siiyey wax kuu dhaamo heli maysa inaad ku qanaaco qaadatid wey dardaarankina waa meydku markuu dhinto afar shay baa in laysdul taagaa marka koowaad xoolihiisii bilowga markay naftu ka baxdaba kow waxaa la leeyahay ha laga aaso waa tajhiis isagii baa la diyaarinaya wixii meydkaa kaga baxayay kafankii baa looga soo iibin haddii xabaalaha la iibsado waa loo iibin haddii mayane dadka dadka isku dhaqan maahe dadka xabaalaha qodaya hadday yihiin dad la karaysto waa adu xoolaha isagaa horta la diyaarin meydhistiisii kafankiisii ku tukashadiisii baabuurkii lagu qaadayey innagu nicmaan haysanaade wax walba waa inoo diyaar wax walba innaga waa inoo diyaar waa nicmo waxaa laga inaan ka xishoonaynaba meydkaa baabuur loo kireeyay inaan ka xishoonnaba ceeb inay agteena tahy waa de akhlaaq wanaagga iyo islaamnimada iyo yacni waa dhaqan fiican de wax ammaano wey laakiin meydkan wixiisii xoolihiisii isagaa lagu bixin xataa timirtaa yar iyo sadaqada iyo waxaa dadku cunayaan oo dhan baa la wada bixin xoolihiisii isagii marka laga aaso maxaa ku xigi qodobka labaad waxaa la odhanayaa meydkan maxaa dayn lagu lahaa dayntaa wax walba ka horaysa hadday wixiisiba dayntay waa la wada bixin 10 malyan buu ka tegey 10 kuba waa dayn 10ka waa laga bixi ubad baa jira iyo carruur baa jirta iyo islaam baa jirta iyo waa war kale taas allihii abuurta arsaaqi iyaga laakiin isaga dayntii lagu lahaa baa wixiisa lagu bixin ila ilaahay dayntan baa loo haystaa aakhiro wuxuu xidhan waa la furfuri dayntiisii marka la dhammeeyo qodobka saddexaad weliba dayntu way adagtay innaga daynta waxbaba kama dhignaba dayntu way adagtay nebigu marka meydka la keeno kuma tukan jirin wuxuu odhan jiray dayn maa lagu leeyahy haa haddii la ydhaha ku tukada saaxiibkiin buu odhan jiray uu ka dhaqaaqi jiray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu maxaana nebiga isagu waa ducadiisu waa mustajaabo wey nin ilaahayba haysto kama furfuri kara ayadda ilan dayntu waa mucallaqo qof naftu way u laalaadaaye tan ma furfuri karayo daynta ma furfuri karayo nebigu iska daayay saxaabi baa maalin maalmaaka yaa rasuulallah anaa bixin buu yidhi nebigu markaasuu ku tukaday duu mid khayr badan meelaha ka soo baxo anigaa bixin anigaa la ii raaco wuu ku tukanayay nebigu daynta dabadeed maxaa ku xiga halkan bay wasiyadu soo geli wuxuu ninkani dardaaran ka tegey baa loo waa qodobkii saddexaad soo maha waa xoolihii isaga laga xabaalay waa dayntii oo laga bixiyey waa maxaa dardaarana dardaaranku markaasuu imanaya wixii uu dardaarmaa la fulin intee la fulinaya waa inagii soo aragnay hadduu dardaarankiisu ka badbadis yahay oo dad ay isnaceen ay xoolaha ka dhexlayeen amba ciduu kala cararayey oo uu yidhaha un maxaan ku dhahdaay wixiiba waan wada bixiyey waxba kama soconaysa 3 meelood marka wixii uu ka tegey loo qaybiyo meelun bay dardaarankeedu socon meelun bay malyuun buu ka tegey 330 unbaa xagga loo dhigi intaa unbaa dardaaranka lagu socodsiin inta kale kuwii uu dhaxalka kala cararayay unbaa la siin dardaarankii marka laga baxo qaybta soo hadhayna waa dhaxalkii dadkii xaqu lahaa unbaa qaybsanaya marka haddaba ilahay halkan wuxuu tilmaamayaa dardaaranka inuu yahay shay muhiima markaa rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta iimaanka lahow shahaadatu marag furka baynikum dhexdiinu
إذا مركي حضر أتماد أحدكم متكين الموت جيريدو حين الوصية دردارا كوقت جيدا وحوي مرق فركينو اثنان اللبا دوا عد عدالة الصاحبة أو منكم إذا كمذا أو أما بهدين لبدا لوايو آخران لبكله أو من غيركم إذن كمسلمين تعانا هين أو قال وإن أنتم هداد إذنكم ضربتم السفرتان في الأرض دلك أو فأصابتكم أيدنكم هبستو إذن هاليشو مصيبة الموت جيري بالعيدين جيري ورينكيت لبدان تحبسونهما ويد حبسي ويد تشوشين من بعد صلاة دبدت بيد تشوشين فيقسمان ويدارا بالله إله مجيء بيكون دارا وقارنا مركز دارين نيسان إن ارتبتم هدات شكدان هدايدان كشكين وحبا دارين ميسان وحيدن كو دارن لا نشتري سيسان مينو أو كو إيبسان مينو به إله مجيء إيا دارتا ثمنا أدويو بين شيء مينو ولو كان هبا هذا كان لو دارن ذا قربى من حكته صاحبة أم بأي واحتريسو ولا نكتم قرينا مينا بيكون دارن شهادة الله إلهي مرخاتيس إنا أنه إذن قورتا إلهي مرقي هدان ضفرنو لمن الآثمين كوى الدنبابي وإنت الدنبابتك مدانا فإن هدي عثر لأقادو على أنهما لبذوذني استحقا إني موتان اسما دنبي ويوحسي اسكو دبا مريين فآخران لبكالي أو مسلمين أيا يقومان تشوكسن أو استاغي مقامهما بوسكودي يهلكي استاغين لبضاسو من الذين كوي كمذا استحق متي عليهم لبضا قال كمتي أو الأوليان لبحكتا الأوليان لبضي أقوم مضناي أقول حقيقة فيقسمان بالله إلهي بيكون نارك واصلا تفسير كناتنا آيات الملاء التفاسير توقو أذكتي كميتي مركا اللقاء الله أيو عربي يكو أذكت إنك النعمة ويانا وبترجمادون وأن ترجميناو بس كنافريناو لكن في عربي يسساركي أي يراد كاني إما كان عليهم باكر نيقو شمع إبانو عبرين لوين نقو كرتا إن يريين بضنبا يعني اللبا ذا قال بينوني سكرا الله نيجي كرا ووحق لليه فآخران اللبكلا أي استاقي فآخران اللبكلا أي يقومان استاقي مقامهما بوسكودي لبدا كرو من الذين كوي كمد استحق كحق متكجر لها الأوليان أو لبدا صو الأوليان كوي وحيجي أموتك أو عليهم كون حكتدو ذا وقسي حيجي عليهم تنوحي نقريسا انتي طلما ماشا وسو جوكستي لبدي أقوم مضنابا كعوي كواسو من الذين كوي استحق كحق متي عليهم كون قرابة الدشودة كحق متو الأوليان اللي بدي أقول حقيقة قرابة دي يوم نمك الله يسكو وذا كعيو لبدي أبتر أقول حقيقة أي استاقي فيقسمان وحي كدارا بالله إلهي مجيعي وحاني أورن لشهادتنا مرق فركيغا أي أحق كمضا أو كقرل من شهادتهما لبضا هورن مرق فركودا وما اعتدينا منانا قردرون ومانا حد قدبين إنا أنه إذن قورتا هدان رقعكو قردرونين وأنا أنه كتوصنين لمن الظالمين ظالمين تأيان كمين ذلك السدا سوحوي ذلك السدا إن دارتي دار لقد بقيو ذلك السدا بأدنى أدو أن يأتوا إلى أولي مادان كواسي بالشهادة مرق فركة
calaa wajhihaa sideedii wejigeedii inay ula yimaadaan aw amaba yakhaafu inay ka baqaan an turadda in la celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaartooda bacdigeed oo rag kale laydhaa ka daba dhaarta wattaqu llah ilaahay ka baqa oo wasmacuu maqla awaamirtiisa iyo wuxuu idin farayo dhegaysta oo maqla weeye wallaahu allahna laa yahdii ma hanuuniyo alqowma dad alfaasiqiin ilaahay diinkiisa ka baxay ilaahay markuu intaa inoo tilmaamay wasiyadaana wuu inoo tilmaamay ilaahay amarkiisa in la qaatana wuu inoo iftiimiyey suuraddii waxay ku gebagaboobaysaa nebiyullaahi ciisa iyo hooyadii iyo warkoodii iyo mucjisooyinkoodii waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan uu inoo tilmaamayaa inuu iman doono maalin aada u adag maalin aada u culus baa iman doono waa maalin khalqigu ilaahay ay hor joogsan doonaan waa maalin nin walba uu bixin doono camalkiisi nasab male abtirsiini ma socoto anaa xoolo badnaa ma socoto anaa laangaab iyo laandheeraha ma socoto anaa dhal awliyadaha ma socoto waa maalin nin walba camalkiisii uuna ay meel marinayso nin walba ilaahay buu hor joogsanaya markaasaa midigtuu eegaya wanaag wixii uu soo horumarsaday sadaqo akhlaaq wanaag salaad soom cibaado ayuu xaan ka arkay bidixdiisuu eegi wixii uu soo kharibay khamre iyo sine iyo been iyo tuuge iyo xan iyo daduu dhibe iyo xaggan bay iman doonaa hortiisaa buu eegi doonaa waa suu nebigu tilmaamayey naartii buu arki doonaa ilan jahannamo ayaa la keenayaayo jidkii siraad baa la duldhigaya camalkaagan u baada ku dul marinaya kana uu kula dhaadhacayaa walaysa baynahu wa bayna allahi turjumaan buu nebigu addoonkiiyo ilaahayna wax u kala af celinayaa ma jiro markaasaa le wakaa jidkii siraade mar camalkaagaa ku marinaya jannadan iyo naxariistan iyo badbaadada iyo taabay ka dambaysaa baa lagu leeyahy waa mowqif adag wey wain minkum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya ilaahay subxaana wa taala wuxuu tilmaamayey ayad ma la soo qaban waayo juskii dambaan ayadda soo qabtay bilowdeed wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya ilahay wuxuu leeyay mid idinka midii ma jiro ilaa haddii kale wuxuu ku qasban yahay inuu halkaa jahannamo galo uma nunaji aladiina taqow wanadaru الظaalimiina fiiha jisiya kuwa mutaqiintaana waan badbaadinaynaa kuwa daalimiintana waan kaga dhex tegaynaa buli rabbi subxaanahu wa tacaala halkaa mowqifkaa adag khalqigii oo dhan baa loo yeedhayay ambiyadii awliyadii shayaadiintii yacni jinkii wax walba waa la soo xaadiriyay ambiyadii oo dhan baa la keenaya markaasaa ilahi halkan wuxuu tilmaamayaa rusushii inta lasoo ururiyaa la leeyahay rusulay bal warrama maadaa ujibtum maxaa laydinka oggolaaday diintii macaanaydaan idiin dhiibay xaqii aan idiin dhiibay wanaaggii aan idiin dhiibay noloshii aan idiin dhiibay waxyigii aan idinku raray maxaa laydinka oggolaaday way edebsanayaan rusushii iyagiioo og baa waxay leeyihiin laa cilma lanaa ilaahow annagu aqoonba umalin adaa naga og anta callaamu اlquyuub cid walba adaa ka yaqaan kiina yeelay iyo kii aanna yeelin cid walba adigaa ka og markaasaa gaar waxaa loo soo qabanayaa kuwii de ugu nicmada badnaa ambiyadii ugu cadcaddaa nebi ciisaa la soo qaban markaasaa la haye nebi ciiseoo bal warran dadka u sheeg wixii aan nicmo kuu siiyo dhan su-aal adag ba haddana la weydiin dara waan arki doonaa ma adaa ku yidhi aniga iyo hooyaday laba ilaah naga dhigta bal arrimaa adeygooda nebi ciisaa la leeyahy ma adaa ku yidhi waa kuwa de yidhi ciise waa ilaahay hooyadii waa ilaahay ma adaa yidhi ilaahya naga dhigta markaasay le maya rabbo waxaanu nidhi waad ogta waa mowqif adag wey qof kastaaba wuu joogsan
كيف إلهي كورميا نبينا عليه الصلاة والسلام وحوري استوى موقف كعادك تلمامي ومديسة مالتا قيامها حوض كيجي بنشوكسب در كيجي ودرك النف نيك كعبة أنا دبوها الرادوي وحوض ودر إلهي أسيي إنا أعطيناك الكوثر كوثر كإلهي أسيي والنبي شوكسني marka soo lagu soo arooraya buu nabigu dad baa ku soo arooraya koox isku dareejo ma si loo kala darajo sareeyay ninba ninku ka amalka fiicna ninba ninku iiga dhawaa ninba ninku ka yaani ka hanuunsana wala soo arooraya wala cabaya wala fulaya ragaan garanayo oo ragii saxaabadaydii ku jiray ayuun baa laga weecinaya nabigu sallallahu alayhi wasallam xagaa baa laga maray kuwa umadaydii baa la weecanaya marka baan leeyahay waa kuwaygii buu nabigu iska daabaalay adiga dabada waxay geysteen ma ogide kuwa faraha nooga qaad jaanaba lagu sii wado waa kuwii ridoobay iyo kuwii munaafiqiinta ahaa ee qarsanayay waxa weey marka nabigu miyuu oranaya rabbow miyuu murmaya wuxuu leeyahay bu'dan wa suuqa ilaahay ha idin fogeey meel baas la idinka tuuray buu nabigu habaar buu ugu sii daray nabigu sallallahu alayhi wasallam waa maal adag weey مالك أبو الله كورمية قال تعالى رب سبحانه وتعالى وحوليه واذكر حسن بي الله يوم مال ضدك أشيك يجمع الله إلهي وكل من الرسول وكل من وصائر يوم مال ضدك أشيك يجمع الله إله وكل من وأرور الرسول من آدم إلى محمد صلى الله عليه والسلام فيقول إله وحورا ما محيبو ياي ذاك سمحو ياي وجبتم ليدنك أقلاضي ليدنك أجيبي محا ليدنك أقلاضي وحيان دين دري محا ليدنك أقلاضي فيقول وحورا ربي ما محيبو ياي ذاك سمحو ياي وجبتم ليدنك أقلاضي محوية وحي ليدنك أقلاضي أي أمدهين ويدنك أقلاضي إيمانك يا توحيدك يا دينتي أدو قيسين محايدنك جوابين قالوا وحي أوران رسوشي يجيو إذا بسنة لا علم لنا إله أنه أقول أملهم ولا نودو لعديني كنودو لعديني إياك قلبك منافق لما كوهيست إياك بينو شيغاي إياك أي دبدب كاهي مدنا أنه ما نانك لقرني لا علم لنا إله أنه أقول أملهن marka adiga cilmigaagii ogaal kaaga leego kaayagu waxba ma aha innaka adigu allaamul ghuyub waxa qarsoonaanta badan allah ogaanshaha badan baad ee wasiiqa mubalagha farab waxa ka dhigantay وهذا اللي أتكي علام وثيقة مبالغة يعني غيوبنا وثيقة مبالغة مركز سالي علام يعني أقوم بدني ككو أقوم بديات يعني قرصودي بدني وحا قرصون تبضن وكان ربي عليه وحي إنك أدو أنت أدو ربه علام الغيوب وحا قرصونان تبضن كو أقوم تبضن بعض وإنك نري مضاف iyo mudaafu ilayh jaariye majruur waxay culimadeena ina bareen marka la laqbaynayo af Soomaaliga ka dambaa lagu horeynaya ka dambaa hadaad ku horeysid ka kalena waad ku dambeynaysaa macnuhu salaanay imaka markaan af Soomaaliga macnaynayno quyuubkaynu soo horeysiinayna innaka adigu rabbow anta adigu allaamul quyuub waxa qarsoonaanta badan ka cid walba uga aqoonta badan baad إلهي مركو أنت أتلمامي واذكر حسن بي الله بالله إذ وقت بلدتك الشيء قال الله إلهي أيدي يا عيسى عيسى ابن مريم ويل كيدي أهايو اذكر حصوصه نعمتي أبالك يجي حصوص قلد يدي حصوص عليك أذيك أنكو نعمي وعلى والدتك هو يدا تيكو نشي وحانو قول نعميه حس إذ وقت النعمة الذي يكون نعميه حس أيدتك أنكو حوشيي بروح القدس
naftii dahirnaanta badnayd naftii hufnaanta badnayd xaal nicmadan kuugu nicmeeyey xus tukallimu aad la hadlaysid aad xaal tukallimu aad la hadlaysid annaasa dadka filmahdi qaydka adigiyoo lagugu sido rarabta adigiyoo saaran dharabta adigiyoo ku sugan xoolka adigiyoo ku jiraa dadka la hadlaysid wa kahlan adigiyoo garhmadooba ah oo nin weyn oo muddo kara dadka aad la hadlaysid waid waqti xus nicmadan kuugu nicmeeyey ciis callamtuka aan ku baray alkitaaba kitaabka waalxikmata murtida waaltawraata tawraat waalinjiila injiil waid waqti xus ciis takhluqu aad samaynaysay min addiini dhoobada xaggeeda ka hay-ati dayri sidii shimbir oo kale biidnii aniga dartay aad u samaynaysay amarkayga iidankayga oo fatanfuqu aad afuufaysay fiihaa dhexdeeda aad ku afuufaysay dhoobada neef aad ku afuufaysay oo fatakuunu ay ahaanaysay dayran shimbir biidnii aniga iidankayga iyo amarkayga awgi waxaad xusuustaa nicmada ilaahu kuu nicmeeyey xaal wa tubri'u aad bogsiinaysay alakmaha ka indhala-aanta ku soo dhashay waalabrasa ka yacni baraska qaba biidni idankayga aad ku bogsiinaysay wadkur xus id waqti tukhriju aad bixinaysay almowta ka dhintay biidni idankayga aad ku soo bixinaysay soo kacebana uu kacayay waid waqti xus nicmadaan kuugu nicmeeyey kafaftu aan kaa reebay aan kaa celiyey bani israa'iil canka adiga aan kaa celiyey markay doonayeen inay ku dilaan oo ay ku daldalaan markaan kaa celiyey nicmadaa xus id waqti xus ji'tahum aad ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad oo faqaala ay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum ayaga ka midii in haadaa maa haadaakani muu ahaanin ilaa sixrun fal weeye falkaasoo mubiin falnimadiisu ay caddahay marka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyihi ciise waxaayoo dhan baan ku siiyey oo nicmo ah waxaa nicmo aan ku siiyey oo dhan xus ka waran ilaahay sow kumuu siin ilaahay sow kumuu gelin ilaahay sow galladaa oo dhan kumuu gelin haa waxaa iman doonta anta qulta linnaas ittakhiduunii wa umiya ilaahayni min duuni illah baa iman doonta aayaadka dambaynu raacin doonaa laakiin aayaddana baynu laftigeeda ku celin doonaa aayaadka dambaynu ku arki doonaa jawaabta halkay ku dhacayso ilaah halkan wuxuu tilmaamayaa nicmo fara badan oo ilaahay nebi ciise siiyey waa kow isaga keligii maaha xataa hooyadiibu ilaahay nicmo siiyey hooyadii waa inaga ala cimraan ku soo aragnay hooyadeed oo saa iskaga fadhida unbaa ubadkii dadka aragtay way qiirootay odaygiina sidaa unbuu u eegay ubad ma lahayn cimraan wuu iska qiirooday markaa unbuu nadar iska qabtayba waa inagii soo marray muxuu ku nadari waxa weeye odaygii uu dhintay istaantii calooshay wax ku sidaa nadar baabay gasho waxay tidhi ilaahow haddaad wiil isiisid adiga dartaa baan u daynba gurigaagaan u xoray doonaa anuu dambe kama yeelanayo adaan kuu dayn ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu siiyey yacni inan bay noqotay ilaahow iskumaynaan ogeyn oo kale weeye inan iskumaynaan ogeyni inan oo kale soo baha walaysa dakaru kalunsaa bilaa yidhi tani dhadigi mid u dhigantaba maaha kallabay doondoonaysa baa layidhi uma dhigantaba tan ilaahay baa mucjisooyin ka soo wadaba waxaa la doonayaa qof bini aadmiya oon aabbe lahayni inay dhasho ayaa la rabaa mucjisaa la doonaya dadka loogu caqli celiyo ilaahay awooddiisa lagu tuso kani tan uma dhigantaa la yidhi ba kan labeed raadinayso inagii soo aragnay yaa koriyey maryama ilaahay baa koriyey way iska baxday way uuraysatay malaku jibriil buu ilaahay ku gargaaray intaayoo dhan ilaahay baa ilaalinayay xataa iyadii cunto iska cunaysa aan dhulkaba jirin yaa ilaaliyey ilaahay nicmadiisa way foolatay cidlay ku foolatay halkii umul iskugumay dhiman ilaahay biyu u keenay ilaahay midhuu siiyey
jiri timiroo engegan dogob timireed engegan ayaa la yidhi dhaqdhaqaaji maxay dhaqdhaqaaji way isku dayday aduu dhaqdhaqaajin baa la yidhi tusaaqit way soo daadan baa la yidhi timir baa uga soo daadan ilmaheedii bay soo qaadatay eeg waa nicmo ilaahay haddana bal siduu u gargaaray eeg ilmi yara ay tunka ku sitay maxaan dadkii kula noqon maxaan odhan doonaa halkeen mari waxaa lay odhan doonaa xaggay ka keentay waa weliba bani israa'iiloo raggii sac qala la yidhi qali waaye ee sac waa nuuciyey midabkee siduu yahay ma beer buu qoday raggii imtixaankaabaa ka dambeeya marka inay aayarun ilma aan la garanayn la timaada iyadoo seeta warwar bay qaatay markaasay leedahay tollaay maan hoogay maan dhinto intaanaan cidba kulmin calaacal baa u dhammaaday waxaa yidhi maryama waa maxay waxaanoo calaacal iyo warwarkani soco isagaa ku badbaadin doonee adu afka juuqa ka odhane isaga un farta ku fiiq baa la yidhi isagaaba ku badbaadin waa mucjiso way seetaa markii la weeraray ee la yidhi haaruun walaashiiyey tii dadka fiicani dhaleenay aabbahaa iyo hooyadaa warwareegga bay aqoonin yacni kuwa yacni ma sinaysan jirin dhaqan xumada halkeed kaga keentay waxaa markii la akhriyey fa ashaarat ilayhi sawm ilaahay mu odhan farta ugu fiiqday taa imankaa bay ka dartay dheen ma annagay noo tilmaamaysa dhan yani bal waaliday la imanaysa ma kanay noo tilmaamaysa isagii baaba hadlayba innii cabdullah ilaahay addoonkiisii baa ahay weliba iyagiibu salaad iyo seke iyo awaamir buu siiyeyba waa goorma isagoo qaydka lagu siiyey isagiioo rarrabta saaran allahu akbar waa nicmo uu siiyey ilahay wuxuu leeyahay taabal xusoo xasuuso waa nicmo ilaahay uu ku siiyo on cid kala siin waxaa dheer nebi ciise waxaa la yidhi ilaahay cilmi wuu baray towraadna wuu baray injiilna wuu baray kitaabna wuu baray kitaabku waa qoraalkii wey dhigaalkii xikmana wuu baray intaa waxaa dheer carruurtu soo intay wax yar malmalaasaan shee yar iyo wax yaroo sheega innagoo naanaanba de waxaan carruurta ku ciyaarto kuwa baadiyuna dundumooyinka intay ka soo qaadaan bay dhoobadabay intay awr iyo waxbay u ekaysiiyaan de nin walba wuxuu da dhaqmada nebi ciise waxaa la yidhi intuu dhoobo soo qaado ayuu dhoobadii shimbir buu u ekaysiinayay dhoobo soo qaad baa samee bal uu sameeyey shimbir u ekaysi baa la yidhi wuu u yara ekaysiiyey shimbirkii afuuf baa la yidhi waa dhoobo wuu afuufay shimbir duulaya unbuu noqday ilaahay idankiisa bani israa'iil wax ku qaataa le waxaa intaa dheer alakmah kii waxa weeye ku soo dhashay maxaan ku dhahay indhala-aanta akmah waxaa la idhahdaa indhuhuba meeshoodii ma dilacsanaba ee qofka hadduu indhihii fataatiiri hadday iskaga jiraan oo laba ay rogrogmayaan dee wax looga yaro siiyo caad baad ka qaaday iyo waxbaad ka qaadiyo meeshaba haddaanay ku samaysnayn ka waran akmahu waa kaan meeshu ay almas tahay aanay jirinba kaasaa saan buu masaxayo wac indhahaba u dilaacay kii baraska qabay xanuunkii cadcadaanka ee dhibta badnaa sanu buu gacanta u yarmarinayeyba way bogsanayeen waa ilaahay aayaadku siiyey intaba waxaa ka daran dhakhtarba waxaanu karin nin dhintay yaa soo noolay nin dhintay waxaa ka nool gudul ag warwareegi nebi ciise kii dhintay intuu yimid buu yihi dhag dhag hebelow kac soo kacay war kubaad ahayd hebel markuu la sheekaystay dabeed buu dib u dhimanayay laakiin waa maxay kii dhintay buu noolaynayay waxaayoo dhan ilaahay baa ku siiyey intaa waxaa dheer iyagiibuu ilaahay kaa joojiyey markay guriga ku xidheen ay xayndaabeen ee inay dilaan dooneen ilaahay wuu badbaadiyey waa innaga ku soo aragnay suuradii hore marka ilaahay nicmadaabuu ka warramayaa deetana jawaabtu say u dhacaysana darsiga dambaan ku arki doonaa qaala tacaala rabbi waxau leeyay wadkur xusna bi allow id wakti xus qaala allahu ilaahay uu yidhi yaa ciisaa ciisi ibna maryamo wiilkeedii ahaayow udkur xus nicmadayda abaalkayga iyo galladii calayka adiga aan kuu galay bal xasuuso wa calaa waalidatika waalidadii hooyadaadii ku dhashay galladii iyo abaalkii aan u galay bal xasuuso id wakti nicmadii iyo galladii aan u galay ayadtuka aan kugu xoojiyey biruuxi اlqudusi naftii dahirnayd malaku jibriil xaal tukallimu aada la hadlaysid annaasa dadka fi lmahdi adigii oo rarabta amba qaydka
amba dharabta ku jira aad la hadlaysay amba xoolka wakahlan adigoo garmadooba aad la hadlaysay adigoo muluqoo imaka dhashay iyo adigoo oday weynaba labadaba si mid aad ula hadlaysay weeye waid waqti xus nicmadaan kuu nicmeeyey callamtuka aan ku baray alkitaaba kitaabka dhigaalka iyo qoraalka waalxikmata murtida aan ku baray waaltawraata kitaabkii towraadee muuse aan ku baray waalinjiila injiil oo adiga lagugu soo dejiyey aan ku baray waid waqti xus takhluqu aad samaynaysay min addiini dhoobada xaggeeda ka hay-ati dayri shimbir sidiisii oo kale aad ka samaynaysay biidni aniga idankayga iyo oggolaanshayga aad ku samaynaysay oo fatanfuqu aad afuufaysay fiihaa oo fatakuunu ay ahaanaysay dhoobadii oo fatanfuqu aad afuufaysay fiihaa dhoobadii oo fatakuunu ay ahaanaysay dayran shimbir biidni aniga idankayga waxaad xustaa xilliga watubri'u aad bogsiinaysay alakmaha ka indhahala waalabrasa ka baraska qaba cadcadaanka biidni idankayga waid waqti xus tukhriju aad bixinayseed soo kicinaysay almowta ka dhintay biidni idankayga waid waqti ka waran kafaftu aan kaa reebay aan kaa celiyey bani israa'iila bani israa'iil canka adiga markay dooneen inay ku dilaan id waqti ji'tahum aad ula timid markay dooneen inay ku dilaan id waqti ji'tahum aad ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad faqaala waxay yidhaahdeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay oo minhum ayaga ka midii in haadaa maa haadaakani ma ahaan waxa nebiyullaahi ciise samaynayo ee uu kala rogrogayaa may ahaanin ilaa sixrun fal mooye wax kale ma aha falkaasoo mubiin falnimadiisu ay caddahay xilliga waxaasoo nicmahaan ku siiyey nebi ciise xasuuso ayuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyihi waxaad xasuusataa markay xawaariyiintu ay ku raaceen ay ku rumeeyeen waxaad xasuusataa xilligii dadkaagu xeedhada ay ku weydiisteen waxaad xasuusataa ma adaa yidhi adoo waxaayoo dhanba qaba aniyo hooyadaba laba ilaah naga dhigtay ku dambay doonta ilaahay subxaanahu wa tacala xaqiisa ina garansiiyo wabillahi tawfiiq wallahu aclam bisawaabi majruullah بسم الله الحمد لله والسلام لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم